leeyahay Soomaali baa kala sareysa maxay kala sareyeen ninkii sarta fuul sultaan carab ninkii dhulka joogana hawiyaha waa iga badisay waxa iga badiyay daaro anigoo hawiyaha baa iga badiyay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يا سومالي ميلبود أدونك تعليز كجوكتان ومحمد إبراهيم وحان ربا إن كهالله برنامج كقبيلة أما سومالي ذا قبيلة ذا أي اسكو فقوقان أما يسوس كلا ساران يفائدة ذا أي ودن كأولى ذا هاي معلنك قبيلة دي استمعها معلنك واي كان سومالي معلنك واي معلنك رسمي عواد أركتي يقول هاي أنا عيرتوي قرنبان هاي عيرتوي قبيل مي نمبر 1 haddaad rabtaan dhalinyaro adduunka horta dhalinyara maamusha ama dhalinyara wax hagaajisa haddaad rabtaan inaad ka baxdaan dhibaatooyinka taagan ee Soomaaliya haysta waxaa loo baahan yahay number 1 cudurka ugu horeeyo ee inaad fahamto ama aad maxaa la dhihi jiray dhuuxdo loo baahan yahay waxa weeye qabyaalada meel ay cid gaarsiinayso ma laha ruux wax bartay oo aqoon diimeed ama mid maadiya leh wax qabiil u dabada gashto maaha TikTok daarad baa la haday power of TikTok waa bash daarad qaata waa sida caawanansi soo gudoomiye mehe in ka baawarsan ma jirto qaata marka dadka qabiilada ku wardinaya ama social media ha joogaan ama siyaasiyiin ha ahaadaan waa dad raba inay iyagu maqaam ku gaaraan oo jaranjaro ka dhigtaan adiga ay kugu fuulaan meesha ay u socdaan marka haddaad rabtaan in wadankii hagaago si sharaf la aad u noolaato sida ummadaha adduunka ku nool oo kale aad u noolaato haddaad rabto inaad iska ilaaliso way cudurka ugu horeeya ee ah qabyaalada iyo qabiilka inaad banaanka iska dhigto dhahdo anigu ka ima anfaco qabiil waa hore iyo anfici waayay sidii diinta ay sheegtay un baa lagu soo koobaya oo ah in qofkan lagu aqoonsado inuu reehebel yahay daazet meeshaas lagu joojiyo wax ka badan oo loo sii gudbi karo qabyaaladaas ma jirto haddii loo sii gudbana xalki aan haynay 20 sano ama 30 sano la soo dhaafay iyo mid ka daran baa Soomaaliya lugaha ugu jiro Somaliland midowga Afrika ayaa inoogu rafsan waxa hoonka jooga waxaan leeyahay daaroodkii Itoobiya wuxuu noqday Soomaalidiisii kii Djibouti kiisii buu noqday kii Kenya kiisii buu noqday kii Soomaaliyana kiisii buu noqday waxaan idin ka codsanaynaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo midowga Afrika hartiga Somaliland daaroodka ka ah marka laga reebo marka number 1 cilad waxa weeye qabyaalada hal jooji number 2 arinka labaad aan rabinaan ka hadlo waxa weeye adduunka waxa indhow ah ama wax hagaajiya dadka wax bartay ee aqoonta maadiga iyo tan diiniga labadaba leh waxaan aragnaa dawladaha soo mara Soomaaliya intooda badan waxay aruursadaan dad aanan aqoon lahayn ama ehel aanan u ahayn portfolio loo dhiibayo ama jagooyinka loo dhiibayo ee lagu amaanaysanayo inaysan wax aqoona u lahayn ama ha ka ahaato qofka madaxweynaha meesha noqday ee dhisaya wasiirada iyo prime ministerka ama system inaga aynan ogeyn oo gadaal ka riixaya dawladnimada Soomaaliyeed ha ahaado dadka aqoonta leh banaanka laga dhigaa dawladnimada Soomaaliyeed ee xishoonaya ee damiirka iyo dadnimada leh dawladda Soomaaliyeed banaanka laga shabaab intuu joogo ama Soomaaliya joogto Soomaaliland intii maqanta 4.5 inta jirto nin hawiyaha madaxtooyada inuu fadhiyo horta raba warkaas horta luqluq ma ku jira war cad maano marka haddii la rabo inay dawladda hagaagto dadka aqoonta leh ee miida ah ee nadiifka ah dadkaas dawladda lagu soo daro waa talabaad ta saddexaad waxaa jirta dadka ugu faraha badan ee wadanka ku nool in wax loo qabto u baahan waa dhalinyarada waxay u baahan yihiin wax la dhaho shaqo abuur qofka dhalinyarada ma cararaya wadankiisna kama cararaya mana necbo wadankii wuxuu u baahan yahay inuu iskuul si fiican u dhameysto inuu arko inay meesha cadaalad ka jirto inuu heli karo shaqo ku haboon oo uu ka shaqeysto iyo inuu qoys ku korsan karo meeshaas oo markaas uu joogo tusaale aan idin siinayaa wadamada adduunka ka jira waxa lagu qiyaasaa unemployment wax la dhaho ama dadka shaqo la'aanta 3%, 4%, 5%, boqolkiiba 5, boqolkiiba 4, boqolkiiba 2 saasa loo qiyaasaa dadka unemploymentiga maxaa u malaynaysaa marka dadka Soomaaliyeed unemploymentigooda cid shaqaysa iyo cid muxuu ahaa tirisa xitaa inay unemployment jirto ama shaqo la'aan dadka ay hayso ma jirto marka gobolana loo kala qaybiyay nin walbana reerkooda gobol buu qabsaday adeerkii iyo
wax shaqo oo meeshii ka jirta iyo dadkii horumar loo sameynayo ma jirto. gobolladii marka waxay bilaabeen inay dowladdii dhexe iyadana ay la murmaan ama la dagaalaan, dowladdii dhexena la wiiqo. marka jugjug meeshaa joog bay Soomaalidu dhahdaa. systematically waxyaalaha naloo dejiyey ee nalagu curyaaminayo waxaa ka mid ah in gobollo intii naloo qaybiyo, madaxweyneyaal naloo qaybiyo, wadankii uu noqdo wadan aan awood lahayn oo decision qof uusan gaari karin. haddii qof ama dowlad dhexe oo decision gaarta la waayana waxaa imaanaysa in muxuu ahaa awooddii ay wiiqanto ama awood wadankii lagu maamulo aysan jirin. qofkii imaadana isagoo daalaadhacaya oo rafaadsan oo dhinacyada lagu dhegan yahay uu imaan, wuu joogi 4 sano, isaga wuxuu ka shaqaysan karo ka shaqaysan, wuu iska tegey. marka waxaa la rabaa bal fiiriya dadka dariskeena ah, fiiriya ummadaha dariskeena si isu maamulaan ama yihiin bal eega. waxaa jirta for example hadda Kenya oo kale gobolaa jira ismaamula, dhaqaalaha waxaa siiya dowladda dhexe. nin tuugo iswaali kara oo dowladda dhexe ka hor imaan kara oo lacaga dhici kara ma jirto. ruuxii wax dhaca miiskaa lasoo saari, waa lasoo qabani, waa lasoo xiri, maxkamad baa la geyn, wixii u dhacay iyo wixii kalena waa lasoo dabadhigi. marka haddaysan jirin dowlad dhexe oo laga baqo oo wax xisaabisa, ciddii wax haleysa xirta, ciddii wax hadda soo qabata, wadankii dee wadan ma noqonayo oo ma hagaagayo. marka waxaan rabaa insha Allah khayr badan Allah idin siiye in fadhiga laga kaco. haddii kale maalin walba qof baa meel intuu fariisto ooyay oo dhahaya alla cunugeygii baa la dilay, caruurteyda waa shaqalaano intay carareen baa magafa meel ku haystaa. problemka intuusan kusoo gaarin, biyo intaysan kusoo gaarin baa la iska moosaabay Soomaali tiri. dhibaatooyinka iyo problemiska intaysan kusoo gaarin ayaa la iska qabtaa oo la iska moosaa. marka sida la isaga moosi karana waxaa weeye kow inaad dowladdaada dhinac ka istaagto oo dhisto. whoever comes, ruuxii markaa imaada ee dowladnimo madax nooga noqda Soomaaliya, in la garab istaago, wuxuu ku saxan yahayna la sheego, wuxuu ku qaldan yahayna la sheego, sidii wadanka horey loogu sii socon lahaana laga fikiro. laakiin bahashan qabyaalada la dhaho meelna laga dhigo, bahashan ninjeclaysiga la dhaho meelna laga dhigo, bahashan hunguriga la dhaho oo dadka lagu xoolahooda la dhacaya meel la dhigo, because berri waa lagu xisaabin doonaa, aakhira ku sugaysa. marka qof fiican oo ummadii horumar gaarsiiya oo hore u wada baan rabnaa insha Allah khayr badan Allah. laakiin waxaan aragnaa ciladii hadda aan soo sheego isbiirsaday inay keenayaan in wadanka xasilooni darro ka dhacdo, in wadanka shaqo la'aan iyo dhaqaale darro ay ka jirto, in wadankii dib u socod ma ogiyo hore u socod uusan lahayn. marka in la toosaa la rabaa. meeshan haddii kale waxay noqon doontaa meel la dhaxlo oo ummado kale ay la wareegaan, waa Soomaaliya. haddii aanan hadda laga gaarin oon la qabanin dhinacyada, oo aanan dhalinyarada wax lala qabanin, oon qabyaalada meel iska dhigin, oon dhaqaalihii la kobcinin, oon shaqo abuur la sameynin, all of these haddaan la iska daba dhigin, waxay noqon doontaa meel lagu kala tago oo ummadana la gumaysto ama society kale ay intay meesha imaadaan ay la wareegaan. marka haddaad rabto inaan movement bilowno, dhalinyaro oo hor u kac leh, oo horumar leh, oo la xisaabtama bini'aadanka, isla xisaabtan buu wax ku gaaraa. dowladahana waa lala xisaabtamaa. laakiin haddii nin walbo in adeerkii iyo adeerkii intii meel loo dhiibo jagaa wax uu ka faa'iidayana aysan jirin, oo maanta dhan uu taageerayo meelaha fadhiyo oo uu leeyahay annaga ree hebela muxuu ahaa saan nama qabatay, saan nalama yeelay, saan ma ahayn, wax horumara oo la gaari doono ma jirto. marka dhalinyaro ay kaca, fadhiga ha laga kaco, qabyaalada meel ha la iska dhigo, ha loo doodo, ha loo dagaalamo sidii horumar lagu gaari lahaa oo wax loo qabsan lahaa. dhalinyarada adduunka maanta jirtana, dhalinyarada maanta adduunka jirto ee shaqooyinka haysta, ee nolosha fiican ku nool, ee nabadda haysta, Soomaalida wax ka duwan ma jirto. laakiin waxaa loo baahan yahay in dadkii meeshii Ilaahay u dhiibay ay Ilaahay uga baqaan mas'uuliyaddii sidii loogu talagalayna ay u qabtaan. waxaan rabaa marka channelkan in lagu soo xirmo hadduu Ilaahay yiraahdo, movement cusub aan bilowno, dhalinyaro cusub oo nadiif ah, kuwii SYL oo kale ah, oo wadankooda inay dhistaan, oo wax u qabtaan, oo hagaajiyaan raba inaan aruurino oo isu geyno insha Allah, oon noqono kuwii Soomaaliya jidka fiican tusi lahaa oo hagaajin lahaa, qabyaaladan aan meel iska dhigi lahayn. khayr iyo baraaraan idin rajeynayaa. waa Maxamed Ibraahin iyo mar kale ku soo xirma channelka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.